amniga waxaan ka codsanaynaa in xaaladaasi degdega wax looga qabto odayaashii deegaanku ee xabadda lagu garaacay way xidhan yihiin waxaana u xidhan yihiin badhasaabka gobolka Awdal annagu ma garanayno meel uu ka keenay iyo wuxuu doonayo waxaad moodaa inuu dagaalkii bariga u soo wareejiyey gobolkan Awdal annagu deegaan ahaan dadan sayna ma jiro wax naga dhaxeeyaa ma jiro warbixinta maalintay dhacday waan u soo gudbinay arrimaha gudaha sanadka booliska Somaliland iyo cid kasta oo khusayso maxkamadda sare waan u soo gudbinay qoraalka warbixinta waa siinay markaas darteed odayaashii deegaanku 5 oday baa hadda xidhan maalinta xabaddu bilaabay 7 bisha ilaa maanta soo ku xidhay ma garanay wax lagu xidhay ma garanay awee waa odayaashii dhulka deganaa waa odayaashii deegaankii dhulka haddii ay ka dhacdo isqabsi deegaan hadduu jiro hay'ado garsooraa jira oo lagu dacwoodaa oo madax bannaan oo dastuuriya ilaa hadda annagu ma hayno haddaan nahay beesha Jibraacin cid deegaan oo isku haynaa meesha ma hayno laakiin badhasaabku cidda uu dejinayo iyo ciddu halku ka keenayo damalaha wuxuu ka keenayaa muxuu ahaa ceelafweyn buu ka keenayaa waxaan leenahay si degdeg ah wax loo qabto waxaan joogay waa deegaankii muxuu ahaa saa darteed waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan codsan madaxweyne ku xigeenka waxaan cod dheer ugu celcelinaa arrinkaasi khatarteeda leh ee cadaalad darrada leh ee ninkaasi gobolka foodada ka abuuray in wax laga qabto odayaashana loo soo celiyo xorriyadda beela ka dhaxeeya maaha waddanka waa la kala leeyahay annagu dhul cusub ma hayno haddaan nahay kala bursigu nin walba bootadiisa iyo beertiisu uu leeyahay dhul cusub maanta noo qaybsan ma jiro 60kii baa dhulka la qaybsaday halkaan joogno maanta 60kii baa la qaybsaday cid deegaan oo isku haynaana ma jirto laakiin isagu bilaadmigu danagu daabac badan yahay waxaan ognahay inuu lacag qaatay waxaan ognahay inuu rebeeshaasaan kaaga raraya meesha uu yidhi afkiisu ka caddeey wuxuu yidhi gabadh baa ii timid oo tiri ballay baan qodanaya halkaasaan ka qodanaya kaxaysaan inoo carabta kaxayso qolaan bilayska isaga amarka siiyey hadduu yahay tali ku-xigeenka gobolka iyo taliyaha saldhigga dilaad isaga amarka siiyey u caddeeyey ninkaas taliyaha saldhiggu wuxuu yidhi badhasaabkaa ka haya qoraalka taliyaha qaybta bilaysku wuxuu caddeeyey inaan isagoo amarra la siin amar uu bixiyeyna aynay jirin laakiin awooddiisii wixii dhacay uu u yimiday ma u fulin isagu dhinac kastaa eego ma u fulin waxaan leenahay oon mar labaad ku celinaynaa oon mar saddexaad ku celinaynaa maanta dhul dadka ka dhaxeeya oo loo qaybinayaa ma jirto waar awal ba la ismaaysan intaasoo badhasaab ay ma jirta Somaliland intay jirta kani wuxuu bilaabay weligii ma wax dhacay maaha waxaan maleynayaa inay tani yareero tahay waxyaalo ka waaweynna hadduu sii joogo gobolka in waxyaalo ka weyna dhici doono bal malaynayaa si kasta haastee aduu shaqaale ku yahay waxaan leenahay oon madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ka codsanayna arrinkaa in si degdega in wax loo qabto odayaasha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha qoraalka waa siinay codkaygu wuu tegey laakiin hadda kama hayno jawaab malaha la xaafad weeyaan malaha la xaafad waxba ka qarimayno waa la xaafad maxamed kaahin waxa weeye ninkaas waa naga noo soo noqeeyey yidhi gobolka Awdal oo loo soo ololi halleena adeero naga qabo ma suurtagal maaha Muuse Biixi baa kala dacwoonina waayo inuu ka jawaabay saacadaasaan joognaa waa nagu eedaamay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa odayaasha xaqdarrada ku xulan ee la barbixiyey ee xabadda laga dhacay ee baygoogii iyo bootoodii loogu yimiday in xorriyaddooda loo soo celiyo waxaan ka sugaynaa dowladda Somaliland jawaab fiican baan ka sugaynaa insha Allah jawaab fiican baan ka sugaynaa annagu haddaan nahay beesha Jibraacin beelaha nabadeed baan nahay
بدونينو لكن هدي لنا كلفو لنا معاشو قرباني موسى وقرنيا لنا معاشو هدي لنا كلفو لنا معاشو وعكلا قوي دونت بورمي هرقيسة هدي أنا كلا على يقبل وايو بورمي هرقيسة كلا قوي دونت odayaasha xidhan in faraha laga qaado waxay ku xidhayihiin ma garanayne sharciga ee loo sameeyay halmoodayna Soomaaliland laakiin waxaan hadda ogaanay hadaan beesh ficilay in aan loo sinayn oo lagu takrifalo awood sida la sii doonayna Soomaalidu waa tiraahdo ma dhalane dhowrtaysan ogaa laba bilood isagoo joogay ayuu garbahaad amar ku soo siiyay in foodo laga soo abuuro oo halka ay dagaalka ceelaf weyn laga bilaabo taana ma yeelayno nabadgelyada Soomaaliland cid kasta oo taabanaysa sifay baan ka nahay mana rabno cid nabadgelyo darro ka abuurta dhulkeen waxaana daba madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi وسلامة وسلامة وكتب وكحوما إلى الهرت والسلامة هذه سجى والسلامة الله وسير كاربها جودها عبد الرحمن ما وسيم ما دحوله كحيك عبد الرحمن إسماعيل سيدعي إيوه وسير كاربها جودها أحمد كاهن جلك بوليسك أنت طبعا حنوشينا سيدك دقة أريكا إلا قالوا هوشا هالكا كدعلي لقول تغرف فلي ciidan police tu lagu soo baxay umada xabad ku abuur war jooji baa lagu yiri xabad cagafta joojiya xabad saafka ka sitaa buu yiri fulin ma garanayna waa beero meesha jooji la yiri xabad baa lagu jawaabay xabad ayaa lagu jawaabay waxa weeyaan halku awoodda xabada uu ka keenay isaga sheegin dadkaasi laakiin sharciga in la hor keeno waa la diiday laba bilood isagoo joogina dhulkana waxa ka qoon barasaabku inuu amar soo bixiyo halkan wuu noo sheegay ana amray buu yiri ila baaytid buu ila baan u amray ballayna qodanaya way tiri orod qodan ku yiri ana amray muu qarin isagu amarna wuxuu soo siiyay taliye ku xigeenka qaybta booliiska ee gobolka Awdal iyo taliyaha saldhigga ee dila jooga waxaana daba si degdega annaga oo qadarin iyo sharaf iyo daga mudatiin eegayna nabadgelyada Soomaaliland eegayna sharafta ay maanta qabto ee ay ku naalooto nabadgelyada waxaan doonaynaa si degdega inay xukuumaddu arrinka u gasho hawsha halka ka socoto odayaashana si degdeg ah loo soo daayo waxay ku xidhayihiin ma garanayno waxay ku lagu halkaas amar intuu la qabtay lagu duubay jaalka waa 80 jir weeyaan haddii ana ka weynayn maanta waxay ku sugan yihiin ma ogin marka waxaan xukuumadda si degdeg ugu codsanaynaa in ay faraha ka soo qaad wax naga dhaxeeya dad deegaan oo dad meesha isku haya maanta ma jiro deegaan hore iyo maamul hore uu jiro boorama 100 maamul baa yimid waxa ka sheekeynay wali ma arag ninka bada saabka ee boorama yimiday ee fadhigaab ka yimid dagaalka ceergaaba ka soo baxay ayaa anaga halkan dadkii baa la soo raray malaha la dijinay cid alla cidna ku haysto meesheedii beerta beeraha iyaga waa beer halka hebel baale halka hebel kalaale halka hebel baale way qaybsan tahay waxa weeyaan wax isku haysano cid isku haysana ma jiro deegaanka iyaga waa nabad dadna isma haysano deegaanka iyaga waxa weeyaan meeshan waxa laga wadaa xaalad abuur israkeen dhil baa la lulayaa dheeshaasi dad cabanaya anagu ma yihiin oo cidna dadka yaan la midnahay sharcigana waa loo gudbay sharciga hadduu shaqayn waayo sida dadkaan nahay hadduu sharcigu shaqayn waayo sida dadkaan nahay cidna kama cabanano waxay dadku yeelayaan ma yeelina haddii sharcigu shaqayn waayo marka waxaan leeyahay ninka maamulka Soomaaliland ee jooga ee dalka ayaan u sheegnaa anagu ma degdegano waxba ma sameeyno dadka odayaasha nin walba oo 8 jir aqalkiisa laga soo dhaqabtay cagaftii halka qolkii la keenay ee yiraahdeen agaga joojiye cagaftan waa beeraha iyagii nin walba aqalkiisa laga soo dhaqado lagu soo dhaxoolay baawur baa lagu soo goroboor mi ku xidhay waxay ku xidheen cid haystay dawladda iyo cid midna ma jiraan ninka bada saabku ba ka aba waxaas ama oday hal xidho ama in mahal rasaasayo ama cid kale reeraha la gubo
waxa weeyaan dhibaatada ninkaasaa wada barasaabka cagaftana isaga horseed ka ahaayoo soo diray horteedna numa soo marin dabadeedna numa soo marin kow isagaa ka ahaa dhib kale oo meeshaa ka jirtay intaa la Soomaaliya jirtay oo lagu wada hadlay oo cid ku wada hadlay lama helo marka waxaan leenahay aan baaq weyn u fududna cidda qosayso in arrinka degdeg wax uga qabato in dheersan oo wax laga degdeg laga soo gaaro arrinkaasi ayaan uu noo qaybsan yahay damaantana lama qaybinayo dawladda waxaan ka codsananaa ama madaxweynaha ka codsananaa ama madaxweynaha ka codsananaa inuu arrintaa degdeg wax uga qabto nimankii odayaasha la suday odayaasha garbihaadle baa la yidhaha degaan weeyi reer baa degan halkaasi la damcay uu doonayo ninka barasaabka boorama ka yahay inuu mataqaanaa aw cagafkan uu daddejiyo wareer kala gashay ninka arrinkaa ka aabee samaynaya waxa weeye ninka barasaabka looga dhigay boorama dee ninka caynkaasa ee ummadda isku jabanaya yaa wasiirka arrimaha guduhu ninka wax qabanaya dee wuu garanayaa ninkii mas-uul wax kala hagaya ayaa dadka loo keenay laakiinse inuu keeno maaha ku afood qaali iyo mushkilad iyo wareer dadka gelinaya in meesha la keeno maaha haddii aan nahay beeshaasi waxaan leenahay oo dawladda u sheeganayna arrinkaa ninkaasi oo barasaabka laydhaa ambase inaka yare taliyaha saldhigga dilaadihi labada nin ee mushkiladda wada arrinkaasi halkaa la yimitay waa labada nin weeyaan waxaan leenahay dawladdu dheeraad ha yeelato arrinkaana wixii laga qabanayo degdeg ha looga qabtaan leenahay intaasaan dawladda ku codsanaynaa si dhaqso ugu badan in mataqaan loo soo gaaro arrinkaa in dawladdu dheeraad yeelato odayaasha xidhan wax alla waxay ku xidhiin ilaa alaan ma haynaano niman gartarra ninkaa barasaabku ku xereeyey weeyi niman xaqdarra lagu xereeyey weeyi niman wax ay dhimeen allahay weeyi waxaan dawladda ku codsanaynaa arrinka caynkaasa waxa weeye dhibteedu leeyahay dawladdu dib ha ugu noqoto ha u fiirsato raggaana xorriyadoodii iyo nabadgelyadoodii ha loo soo ceshaan leenahay annagu yaa marka waxa weeye iyadoo arrinka ka baxay waxaan dawladda ku codsanaynaa arrinkaasi si degdega in wax looga qabtaan doonaynaa haddii aan nahay beesha jibraacin ee taalle garbihaadle haddaan nahay saasaan ka codsanaynaa dawladda taqaanaa inay kahin laydhaa waa wasiirkii arrimaha gudaha weeye wasiirka arrimaha guduhu waxaa loo baahan yahay ninka mushkilad wada yaa ee arrimihii gudaha ka socda inuu dadka ka qabtaa loo baahan yahay waxaan leenahay ina kaahinow ninkaasi kolka hoosaan u dhaadhaco xagga qolonimana waa tolkaa weeye waa nin reerkiinniya yaa ummadiyo dad buu isku gubayaa reere iska deggan oo guryahoogii fadhiya yuu dab iyo hulxu la soo galay waxaan kuu sheegaynaa ninka wasiirka ina kaahina kuu sheegaynaa walaal ninkaasi in si degdega wixii aad ka qabanaysaan inaad ka qabataan meeshaana odayaasha iyo duqyaasha waa ilaa 9 jir ragga meesha aan ku xiriyay ninkaasi raggaana waxaan doonaynaa haddii caawatoodii ay gasho yaa reer baan ku yeelanaynaa anagu magtaa reer baan ku yeelan yaa reer baan ku yeelanaynaa wax dad oo dhan ha ku leenahay maaha yaa maxamed kaahin oo ninka magtaa u soo doonan doonaa berito waa adiga yaa dadkuna way isqaanaan war annaga waa la yaqaanaa jibraac baa la naylaa cidiina soo faragelisaa nagama macaasto laakiin saanu dawladda maanta jirta waan u fiicanahay horena waan ugu fiicnay iyadoo saan ugu fiicanahay aanu soo codaynay dan walba aan ugu caymadon u dadaalay in maanta haddana guryahayagii maxasteedii in yaroo laga keenay bahashii ma taqaanaa maxaan ceelaf weyn laga keenay awreerahayagii jirjiro war darag baan naga qaadan mayno yaa xinayahayagii buu doonayaa inuu gooyo ma taqaanaa in wax kale ku magacaabo waxaan u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha arrinkaa haddii degdeg waxaad uga qaban weydo ayaan leenahay annagoo beesha jibraacina wixii mataqaanaa kaasi ka yimaada wax annaga naquseeya maaha waan inii sheegnay ilaa markhaatiga waan inii sheegnay waan inii soo gudbinay waxaan leenahay sidii ugu qurux badan raggaa jeelka awdhigana ha la soo daayo yaa raggaa jeelka awdhigana ha la soo daayo yaa arrinkana si degdega hala noo soo gaaro wax loogu qabto saasaan leenahay gobolkana
ninkaasi ma arki karna halana dhaafiyo ayaan leenahay waa najuusi weeyaan hana dhaafo ninkaasi ma arki karro wasalaamu calaykum